بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلهي سبحانه وتعالى kitaabkiisa xakiimka waxa uu aad iyo aad ugu ammaanay guurka, wuxuuna tilmaamay inuu ka mid yahay aayadaha alla ka mida subxaana wa tacaala. aayadaha faraha badanna inay ku caqli qaataan dadka fikiraya oo ogaanaya ilaahay aayaadkiisa inay dhab iyo xaq yihiin. waxaana wax ka soo tilmaannay guurka iyo qiimaha uu leeyahay. waxaan in yar carabka soo marinay dhallinyarada maanta joogta, wiilal iyo gabdhaba, iyo waxyaabaha ay ku dhex sugan yihiin. haddii rabbi idma subxaana wa tacaala wax yar waxaa noo harsan caqabaadka guurka hortaagan. maxay dhallinyarada gidaaradii derbiyada fadhiyay la guursan la'yihiin? maxaase loo guursan la'yahay gabdhaha tirada batay ee aqalladii guryaha fadhiya? waxaa weligeed aan dhicin, khaasatan da'bi annagu aan leenahay ahayn, gabdha iskaabule la yidhaahdo. waxaa jira gabdha keligood deggan, waa 4, waa 5, waa 6, 17 bay gaareen baa la ii tilmaamay. keligood ayaga iska mas-uul ah. dhallinyaradii meeshaasay fadhiyaan. waayo walaalayaal, maxaa dhaco xaaladdaa loo sameeyey? ma gabdhihii baa diidan in la guursado? mase raggii baa diidan inay markaa wax guursadaan? ma gabdhihii baa meherka qaaliyeeyey saan tilmaami doonno? mase dhallinyaradii baan waxaysanin? waxyaabo fara badan oo su'aal in laysweyddiiyo mudan ayaa markaa jirta. wax yar baan wax ka tilmaami doonnaa caqabaadka guurka. wax allaala wixii talee dadka ay soo qorteen ama su'aalaad ah oo mawduuca ku saabsanna waqti baan u samayn doonnaa haddii rabbi idmo. waxaan maqlaayay xalay markii la yidhi waraaqooyinka la soo qoro, dhallinyaraa waxay u fahmeen baa la yidhi gabdhaa laydinku daraayay warqad soo qorta. markaasay maanta dhafaraxsanaayeen. xaaladdu saa ma ahayn insha allah. marka bacdamay xaaladdu sidaa tahay walaalayaal, ilaahay kitaabkiisa xakiimkee munasalkaa waxa uu ku tilmaamay in dumarka iyo ragga isguursada labaduba ay labis isku yihiin. hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna. idinka astur baad u tihiin buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala, ayaguna astur bay idiin yihiin. meesha macnaha laga fahmi karaa muxuu yahay? inkastoo labiska la tilmaamahayo shukada ay wadatay qamiiskii surwaalkaad wadatuusan ahayn oo macno ka xeel dheer uu ku jiro, haddana gabadha muslimadda ah haddaysan guur ku sugnayn ama aan la qabin, in badan waxay la mid tahay waxaan labis lahayn. wiilkuna saasoo kaluu la mid yahay. sida ilaahay tilmaamaya, hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna. waayo waad asturaysaan, idinkuna way idin asturayaan. gabdhaha iyo wiilasha isqaba mid kasta ka kale labis buu u yahay. haddaadan xaas lahayn yaa ku asturaya? gabadhu mar allaala marka la guursado, sababta loo yidhi nikaaxa ha la iclaamiyo oo kor ha loo qaado oo masaajidada ha la geeyo oo nolol sharxan ha lagu sharxo meelaha aroosku ka dhacaya maxay tahay? kii soo maraba inuu dhaho maxaa ka jira meesha? guur baa ka jira, yaa la guursanayaa heblaayo, waa khalaas way dhammaatay, waa muxsinad. qof kale oo u hanqaltaagayayi ma jiro. inta badan way badbaadaan gabdhaha guurka ku jira. inta badan ma badbaadaan kuwa aan weli guursanin. kuwa aan weli guursanin inta badan ma badbaadaan. tagsiilaha mar allaala markay inan raacdo, cabbaar markuu socodsiiyu salaamo kadib, su'aasha ugu horaysu weydiinaya maxay tahay mataqaaniin? ma lagu qabaa? haa hadday dhahdo in badan buu ka gaabsanayaa. maya markay dhahdana waxaa bilaabanaya hasaabo, waxaa bilaabanaya hadal, waxaa bilaabanaya taleefon la kala qaato,
waxaa bilaabanaya arrimooyin badan oo noocaasa waayo gabadhani ma aha gabar xasilan ma aha mid ilaalsan qur'aanka mararka gobol ka mida walmuxsanaat min annisaa yaa loola jeedaa muxsanaadka waa dumar rag leh waa xaasas buu ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala idan gabadhu markay xijaaban tahay waa ilaalsan tahay markay ahludiin tahay way ilaalsan tahay markay masjidka fadhiso way ilaalsan tahay sidoo kale markay xaas tahay oo ay reeri leedahayna in badan bay badbaadaa wax badan ayaa laga yaabaa inay badbaado sidaa darteed walaalayaal xaaladaana aan aad iyo aad u fiirino guurka inuu qiimaha faraha badan leeyahay inaan aad iyo aad ugu dadaalno waa shay muhiim ah ilaahay kitaabkiisana in badan buu ku ammaanay in la guursado in badan dadka guurka ku jira wiilal iyo gabdhana in badan bay aad iyo aad u badbaadaan dhallinyarada waxaan in badan dhihi lahaa guurka aad iyo aad ugu dadaala sanadkan iyo qarnigan aanu ku jirno waxaa badan dhallinyaro waxaa fara badan waxyaabo badan iyo hanti aan haysano laakiin guurkaa yaraaday waxaa adduunka soo maray jiil aan waxba haysanin laakiin guurku ku badnaa waxaa adduunka soo maray jiil mar allaala markii ay guursanayeen aan shilina haysanin walaalayaal maantana markaad fiiriso ayagoo ilaahay dartii ula jeeday cafaaf iyo dhowrsanaan ka rabay maantana hanti iyo owlaad meel ay dhigaan markaa la la'yahay waayo 3 qofood anaa cawn iyo kaalmo u ah buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala waxaa ka mid ahaa naakix iyo nin raba inuu guursado cafaafna ula jeedaa sababtuu u guursanaya waa inuu dhowrsanaado waa inuu edabdaradii akhlaaq xumida magaalada ka jirta alla ka badbaadiyo inuu helo meel uu shahwaadkiisa ku guto inuu helo diintiisii bar ka mida inay ilaalsanaato qofka noocaas ilaahay dayici maayo subxaana wa tacaala qofka noocaasi ilaahay ma dayacayo rabbi ayaa yidhi waankixu layaama minkum waalsaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqaraa ilaahay baa deeqaya subxaana wa tacaala war isu guuriya xaaslaabayaasha wiilka aan xaaska lahayn iyo gabadhaan xaaska lahayn labada waa labada ugu badan ee adduunka fasahaadiya waa labada ugu sharta badan waa labada ugu dhibaatada badan muxuu rasuulku u amray inay soomaan muxuu rasuulku u amray inay soomaan hadday guursan waayaan fisqi baa la diidaa xumaan baa la diidayaa waxyaabo badan oo akhlaaq xumiye aadaab darro ah inay magaalada ka dhacdaa la diidaa iyo bulshada dhexdeeda sidaa darteed walaalayaal waa in marka hore qalbiga aad gashataan maxaan ku guursadaa maxaan haystaa maxaan siiyaa maxaa inta la leeyahay dhibaato fara badan baa imaanaysa maxaaba hala dhee haddii la ilaalsanaan laha waxbay ahaan lahayd mana guursanayo mana ku dadaalayo mana soomaayo indhiisana ilaalin maayo waxa la rabo maxay tahay marka akhlaaq xumaa loo socdaa edibdaraa loo socdaa xaaladda noocaas aan iska ilaalino Saciid ibn al-Musayyib gabadhiisii mar allaala markuu u guuriyo canugii ardayga ahaa ee masjidka nebiga wax ka baranayay macallin 2 dirham baan haystaa buu yidhi wax kale oo aan haysta ma laha qaar baa wax u aruursan yihiin meel u yaalaan laakiin ay ku dhoofaan bay rabaan Soomaa dhalinyarada agtarkooda labaan haystaa buu macallinkiisii wuu la hadlayaa kaalay soo dhawow halkaas la fadhiisiyaa loogu nikaaxiyay kitaabkaanu ku soo marnay waa loo mehriyay waan soonnaa buu dhahay maalintaa waa wareeray waa dooqay buu yidhi wiilkii la mehriyey sidaa darteed waxaan iloobayba soonkii mar allaala markaan salaada maqhribkaa tukaday gabar baa ku mehersan meherkiina 2 dirham waay 2 dirham buu haystaa wax kaloo ka dhacaa ma laha aqal yaroo doqoshaa meesha ugu yaala sariir ma laha wax la dhigaa ma laha faynus baa u taala laakiin kutub cilmi badan baa meesha u yaala rabbi buu ku kalsoon yahay subxaana wa tacaala intaa wixii ka dambeeyey maxaa dhacday Saciid intuu ku fakeray say ku dhici kartaa nin xaas leh inuu keligii jiifto gabadhaadii oo xaasad ahna inay guriga ku jiifto muxuu sameeyey soo labisuu yiri jalbaabkeedii bay isku soo tuurtay waa la soo kaxeeyey aabbaa soo kaxeeyey albaabkaa loo soo garaacay waa kuma waa Saciidaan garan waaye buu yiri maskaxdayda waa macallinkii dhammaa waa shiiqiisii gabadhiisii buu u wadaa albaabka markaan ka furo meeshuu taagan yahay alla maxaa dhacay xaaskaagaan kuu wadaa waa yaxyaxay buu yiri xabad muufii saliid baan ku afuraayo meesha ii tiilay waxaan isdahay gabadhii waxaa la yidhi gal calaa barakatillaah gal guriga ninkaaga
walaalayaasay wax u socdeen fiiriya inta maxaa laga cararayaa gabadha noocaas arooskeeda qiimo ma laha miya faajirada maanta looga tumo oo kalaabyada iyo fanaaniinta taasa qiimi wanaag leh miya gabadha taabiciyada ah cilmiga aabeed xambaarsan khayrkii wanaaga leh mar allaala markii gabadha soo dhaqaaqday waxaan ka xishooday buu yiri muufadii saliid inay aragto faynuusta ka dhaqaajiye marka hore say mugdi u noqoto waa soo cararay wixii baa dhinac u bixiyay xaaladahaas wax loo sameyn jira walaalayaal niyad baa idinka maqan iyo iimaan xaqiiqda marka la isku sheego wax kasta waad haysataan wax lagu guursadana waad haysataan sidaa darteed niyad bir ah lala yimaado man hiroobi baa naag lagu dhaqi karaa qaar baa yiraahdaa xagee lagu dhaqaa lagu dhaqi karin xagee la tagaa marka walaalayaal sidaa darteed dadka muslimiinta ah qaasatan dhalinyarada gabdhaha waxay sugayaan waa idinka gabdhaha waxay guurka ka rabaan waa idinka waxa laga rabo xilkas inay noqdaan waa idinka waxa la rabo inay soo xamaalaan waa idinka waxa la rabo inay wax soo kasbaan waa idinka idinkana ha ismoogsiinine intaad ilaahay talada u dhiibataan khayrkii wanaaga ku dadaala haddaan sidaa la yeelin walaalayaal waqti baa dhumaaya waqtiga waa sii socdaa gabdhaha haddii ay 20 sano ama 18 iyo 10 5 iyo 20 meelaha ay ku guursan waayaan maxaa la gelayaa sodomeeyo Soomaha maxaa la sii gelayaa 40 meeyo maxaa dhimano kale goormee guurkii nadiifkii xalaasha ay macaanka la helayaa sidaa darteed dumarkana waqti ha ka dhuminina in yar oo rabbi idin siiyaa idinku filnaanaya iimaan raasiqa la imaada daacad dhaba la imaada rabbi subxaanahu wa ta'ala ku kalsoonaada khayrka iyo wanaaga ku dadaala faaxishada yaraanayse meel istaagaab yaraanaya xumaatadii waxyaabaha jira way yaraanayaan mar allaala markuu guurku bato khayrka iyo wanaagaasa la gaaraya sidaa darteed caqabadaadka guurka dhalinyarada inta markaan uga baxna caqabadaadka guurka hortaagan waxa ugu weyn waa waxaan hadda tilmaanay waa iimaan la'aan waa qofkoon ilaahay ku kalsoonayn subxaanahu wa ta'ala maxaan siinayaa meeqa sanaad jirtaa wax ku siin jiray meeqay jirtaa yaasa quudin jiray ma waxaad iska dhigaysaa sidii wax adiga risqiga gacanta ku haya ma waxaad iska dhigaysaa gabadha risqigeedana gacanta ku hayso wixii alla kuu soo dhiibaad siinaysaa wixii ilaahay kuu soo dhiibay daacad ahaw dadaalna sameey waxaad soo heshana ha ka qarsanin gabadha masaakiinta ah wax allaala waxaad soo heshay wax uga iibi waxa dhibaatada nasaaran waa is-aaminitaan la'aan waa qiyaano asagiina waa khaa'in ayadiina markii aragtay inuu khaa'inad noqotay soo u socdaa loola socday sidaa marka waa in la iska daayaa waa in ilaahay laga baqaa subxaanahu wa ta'ala ninkii dhahay maxaan ku guursadaa maxaan haystaa maalinta dambe waxaad maqlaysaa $14,000 oo baa lagu qaaday shalay wuxuu laa maxaan ku guursadaa ani xagee ka keentay hadda sidaa darteed walaalayaal waxba ka ahmiyeysan waxba ka awliyeysan qofka muslimka ah diintiisa ilaalsanaanteedu waa guurka qofka muslimka wuxuu ku ilaalsanaan kara waa guurka saa darteed qodobka ugu horeeya ee looga baahan yahay waa inaan iimaan iyo caziimo iyo go'aan iyo tala saarasho alle oo adag aan la nimaada waa mid koowaad haddaan taa lala imaanin xiraan buu qofku ahaanaya mid labaad caqabadaadka guurkeena hortaagan ka mid ah in badan aan saarno dumarka gardarrade waa meherka qaali ah meherka faraha badan dhalinyarada way ka sheegteen walaalayaal sidaa darteed rasuulka sallallahu alayhi wasallam in kasto gabadha muslimada ah wax allaala wixii ay doontay meher ka dhigan karto haddana wuxuu amaanay meherka yar meherka aysarkee qafiifkee ugu fudud waa meherka ugu barakada badan gabdhihii dhaxyar lagu guuriyay ilaahay baa baraka ku daray subxaanahu wa ta'ala kuwii faanba ha ka ahaatee intaas waa $1 inta baan nahay xaaladeeda maxaan dollar ka naqiinay markii hore waxara iyo geel iyo loo baa la isku meherin jiray sidaa darteed baa mar allaala markii maanta meesha la yimid xaaladaana ay saa u badatay dhalinyaradii gadaal bay u kaceen
ileen gabadhii afka loo kala qaaday lala hadlaba meherka ugu horeeya wuxuusan awoodi karin. maxaa ku xiga xafladii la dhigi lahaa, maxaa ku xiga gabadhii saaxiibadeeda meeshii looga dhigay oo kale doonaysaa haddana taaj edeb darro la yiraahdo oo gabdhaha la saaro aysan socon karin. 3 gabdhoodna kor bay inta uga soo qaadaan, 3na intay kor uga qaadaan marka la galbinayo. saa darteed baba loo cabsi qabaab inay kufto. mashaakil noocaasna waa yaalaa, meeqa lagu kireeyaa. xaaladahaasoo dhan waa dhibaatooyinkii caqabadaadka guurka hortaagan. taa waxaa ka mas-uula gabdhaha. waa laydiin ogol yahay, ilaahay subxaana wa tacaala idinkuma ciriirinin. meherka idinkaa iska leh, xeer ma galo, tol ma galo, oday ma sheegi karo, kaaba qabiilka ma hadli karo, inanta ayadaa ka hadli karta. gabadha iyo wiilkuu ka dhaxeeyaa. laakiin waxa kale wax keen iyo waxaan adeer ha la siiyo iyo waa mawduuc kale. laakiin haddii meher yimaado naa'aamus waad maqlaysaa maanta. naa'aamus way soo heshiiyeen, $300 bay ku soo heshiiyeen. maxaa tiri ma 300 ma gabdhana 300 lagu mehriyaa? aamus baa taala. aamus ma aha. hadday malaayiin sheegatana ayadaa leh, hadday kun sheegatana ayadaa leh, kow hadday sheegatana ayadaa leh. wajasadkeeda meesha ugu sharafta badan waa waxay ku banaysanaysa walaalayaal. sidaa darteed ha lala gorgortamina. waxaan la hadlayaa odayaasha, waxaan la hadlayaa waalidiinta. bacdamay sidaa tahay meherka gabdhaha iska leh, ayaga waa laga codsan karaa walaalay wax iga dhin. in badanna islaamku wuxuu aad iyo aad u ammaanay meherka aad iyo aad u yar. meherka maanta ay sheegtaan waa waxa kambani lagu furo. koox shirka ah markay isu yimaadaan waxay isku dardaraanay shirkad ku furtaan bay keligeed meer u sheegataa maanta. xaaladda noocaasa la marayaa. shirkad ma aha walaalayaal. meeshani waa inaad cafaaf hesho, waa inaad dhowrsanaan heshaa, waa in ilaahay subxaana wa tacaala khayrkii wanaagga ku waafajiyaa. taasaa markaa lagu dadaalaa. gabar baa nebiga u timid sala allahu calayh wasalam. waxay tii rasuulka allow naftaydii baan kuu hibeeyey. intuu saa u firiyo madaxa ka luxluxay. nin baa dhaa yaa rasuul allah, haddaadan dankalayn ii guuri aniga. waa lagu kala tartamayaa. anii igu dar. muxuu meelku og yahay ninka? muxuu meelku og yahay? adaaba 345 lagu soo diraaye. markaasuu dhahay rasuulka alla maxaad haysataa? waxba ma haysto. bax ee wax soo raaraadi. waa baxay, waa la sugaayey, waa soo laabtay. rasuulka alla wax ma soo helin, wax ma soo helin. haye orod wax soo raadi. walow khaatim min xadiid, waa faraati bir ah. faraati dahaba ma aha, faraati fidaa ma aha, waa khaatim walaalayaal. xadiid waa bir. xataa keen gabadha la siiye walo khaatimkii xadiidku soo waayay. ninka wiilka kaga warrama, guurkiina waa rabaa. gabadha inuu gacanta ku dhigana waa rabaa. faraati birana ma haayo wuxuu ku bixiyo. yaa rasuul allah hada izaari, macbistaa ma haystaa buu yidhi. go'a ma haystaa. hor maxay ku falaysaa go'a? haddii ayada la siiyana adaa ka dharla, haddii adiga lagu siiyeyna wax ma haysata gabadhii. wuu iska fariistay. intuu dadaali kara waa dadaalay. intaad dadaali kartaan dadaala. tabari meeshay idi dhigto waa gooni. laakiin meeshaasaad fadhisaa. shukaansina dhaafi maysid, xumaanna dhaafi maysid, gabdha fiifirsna dhaafi maysid, mana gursanaysid. xaggee u socotaa marka? wuu iska fadhiistay ninkii ilaa majliskii ku dheeraaday. rasuulka sal alla alay wasalam wuxuu ku yidhi kaalay, maada macaka min alqur'aan? war qur'aan ma taqaanaa? maxaa qur'aan ah oo aad taqaanaa? nacam, waxaan aqaanaa buu dhahay suurat albaqara walatii taliiha. baqariya aala cimraan 286 aayado. soomaa baqara aala cimraan waa 200 aaya. isku dar. dusha ma ka taqaanaa oo dusha ma ka aqrin kartaa? haa yaa rasuul allah, waa baqariya aala cimraan. deeqa macallimiin baa nagu dhex jirta. haddii la waraysto hadda wax guursaday ma laha ilaa wax yar maahane. 14 suurad bay qalbiga ku hayaan. suuratulbaqara iyo midda ku xigtaan aqaanaa buu yidhi. riwaayadaha qaar waxay leeyihiin in allaala intaa taqaano qur'aan baan kugula mehriyey. qaar baa waxay dhaheen 20 aayadood bar inanta. rasuulka sal alla alayh wasalam meher baa looga dhigay. meher baa looga dhigay. barakaa ilaahay dhex yeelay. niyaddaa fiican. xafaaf buu rabaa, dhowrsanaan buu rabaa. adigana waxaad ku belgaartaad rabtaa inta fiisaha kaaga soo baxaya. marka islaama laha wuxuu waxyaabaha ilaahay uu noo dhibaatooyinkii waxyaabaha ay noogu dhacayaan qof kasta danqaasoo wataa. wax ilaahay dartiya maaha subxaana wa tacaala. wallaahi hadday alle darti aan lahayd gabdhahaasoo dhan way asturnaan lahaayeen.
idinkoo dhanna cafaaf iyo dhowrsanaan baa la heli lahaa. waa in niyadda la isku furaa, niyaddana la hagaajiyaa, rabbina laga baqaa, dumarkaas ilaahay looga cabsado subxaana wa tacaala. idan meerka xaaladiisu waa sidaa, caqabaadkuu ka mid yahay. waan rajayn doonaa hadday muxaadaradu dhammaato in wax badan laga bedeli doono, gabdhuhuna inay maqlayaan aad iyo aad baan u rajaynayaa. meheradan aad qaalinaysaan walaalayaal dhibaatuu idiin yahay. 30 bay ku tallaabsatay, 35 bay maraysaa, 40 bay u sii dhowdahay, weli lama guursanin. nin la'aanna maa habeen kastaa loo yimaadaa. laakiin maxaa keenoo kalifay? mar allaala markay afka kala furto iyo madaxa gacanta saartaa waxa la sheegay, markaasuu meesha ka cararaya. waa dhibaato aad iyo aad u weyn. ta kale ee caqabaadka guurka ah ee hortaagan waa qabyaaladda walaalayaal. qabiilku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu dhibaatada badan. wiil iyo gabar isdoona oo alla dartii isku doonaa qabiil isugu diidaa. waxa casabiyadda ah ee jaahilnimadii iyo wixii hore in laga baxo waa shay muhiim ah. cabdiraxmaan ibni cawf walaashiisa ayuu qabay bilaal ibnu rawaaxa. zayd ninka lagu magacaabo zaynaba binti jaxshi waa qurayshiyad walaalayaal. zayd waa addoon la xoreeyey, waa nebiga ina eedadii sala allahu calayhi wasalam. mar allaala markuu walaalkeed u diiday inuu ku mehriyo, wamaa kaana limu'minin walaa mu'mina idaa qada allaha warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrin baa lagu soo dejiyey. waman yacsi allaha warasuulah faqad dalla dalaalan mubiina. waa u jeedaa sida lala hadlay. rasuulkii allah waa ogolaaday, kaalay buu yidhi, asagaa ku xihay walaalayaal. soo abtirsaa lagu leeyaha maanta, soo abtirso, soo wax yeel, allah isma guursano. ma dadkaasaa tihiin? xaaladdiina masaamba arrinta hadda ka hor baa dhibaato noocaasa dhacdo, nin ciddiina intaan gabar sinu xumeeyey. maxaa iga jira hadduu xumeeyey? anima xumaynaya? waa maya. saa darteed walaalayaal aan ogaano, yaa ayuha annaas inna khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu. waa inaad tacaaruf samayso, waa inaad dadkaaga ka aqoonsato dadka aad ka xiriirin lahayd. inna akramakum cinda allaahi atqaakum. ninka idinkugu taqwada badan ee ninka idinkugu fiican ee idinkugu karaamo badan alla agtiisa waa kan idinku cabsi badan buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. rasuulkuna muxuu yidhi, hadduu idiin yimaado nin diintiisa iyo dabeecaddiisa aad la dhacdaan, u guuriyo gabdhihiinna siiya. labadaa u fiiriya. labadii maxaa bedelay? qabiil iyo lacag. labadii maxaa bedelay? casibad iyo doolar. labadii maxaa bedelay? waxyaaba noocaas oo kale ah. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay waxa wax lagu qiimeeyo walaalayaal diin ha noqoto. waxa wax lagu qiimeynaya waa in alla ka cabsigu ahaadaa, waa in xaaladda noocaasa la ogaadaa. dadka ahludiinka ah ee diinka yaqiinay gobol ka mid ah yaa laga yaaba inay arrintaa ka suurowdo. iska daa caamadiya. dadkii culimmada ahaa gobol ka mid ah ayaa laga yaabaa arrintaa inay ka suurowdo. iska daa caamadiya. dadkii qur'aanka aqrinaayey ummadda wacdinaayey gobol ka mida laga yaabaa in laga helo walaalayaal. wamaa ubari'u nafsii ina nafsa la amaaratun bisuu. sidaa darteed qof kasta oo muslim ah dhaga wax lagu maqlana leh waa inuu qodobkaa iska ilaaliyaa. diin ma leeyahay? dabeecad ma leeyahay? wax ma dhaqi karaa? beri hadday isqabtaan war makaa maqli karaa oo ma celin kartaa? diin lama leeyahay oo salaad la'aan miyuu ku joogayaa guriga? xaaladda noocaasa ha loo fiiriyo. taasaa khayrkii wanaaggu ku jiraa. taasaa rabbi agtiisa cizii karaamo looga gaarayaa. shiiqa kitaabka akhrinaya ma rabtaa iimaankiisa inaad ogaato? adoo tolkiisa aanayn gabartiisaa doono, markaasaad ogaanaysaaye. naagtaada ma rabtaa iimaankeeda inaad ogaato? minyaro la qaado, markaasaad ogaanaysaa heerkay xaaladdu tahay. marka xaaladaha noocaasoo dhan waxaa qofku khayr iyo wanaag ku gaaraa waxay tahay waa marka ilaahay aayaadkiisa lagu dhaqmo. waa diinta ilaahay walaalayaal. qabyaalad qiime ay leedahay ma laha. wax dadka lagu qadariyaa ma aha. labadaa qofood ee aad qabiilka isugu diidayso maqaayad bay ka wada casheeyaan. ka waran dhibaatada noocaas. labadaa qofoodaad isku diidayso iskuulka markay iskala soo baxeen meelahay soo mareen maxaad ka ogtahay? halkaa baad fadhisaa, maya ku siin maayo, maya saasaa tahay. adiga xaaladda maxaa fara kugu jira? marka hore waa in xaaladdaa la ogaadaa. marka qabiilka oo laysku qadariyo waxay ka dhalataa ama keentaa caqabaadka guurka, mashaakilaadka faraha badan, dhibaatooyinka adag. caqabaadka guurka waxaa kaloo ka mid ah sida dadka gobol ka mida ay ka dhawaajiyeen ama ay tilmaameen waalidka
iyo dadka ayagu mas-uulka gabadha ka ah. xaaladaha noocaasa lug bay ku yeeshaan mararka gobol ka mid ah, mar kastaa ma aha. laakiin mararka gaarigan KBU 938B fadlan meesha ka qaado.